daawadayaasha sharafta badan waxaad mar walba nagala socotaan barnaamijka almusaamax kariim. qisada maanta waa qiso iska caadi ah oo mar walba nagu dhacdo. waxay khusaysaa jacayl kaas oo isku beddelay xanaaq iyo khilaaf. insha allah waxaynu noogu dhammaan doontaa heshiis iyo iscafin. waan ogaan doonnaa iyada oo faahfaahsan, laakiin marka hore aan qaabilno saaxibat addacwa nawaalu zayn. أهلا وسهلا نوال. أهلين مدن. يفديسو سيدتها عافمادكاي كورن. الحمد لله وانت عنها. قصada waxay ka dhacday Lubnaan. Nawaalna waa Lubnaaniyad. waxa iskhilaafay iyada iyo saaxiibteeda. ilaa iyo meeqa ayaad iskhilaafsan tihiin? sanad iyo bar. waa sanad iyo bar. sanad iyo bar. aan idin sheego qisada sida ay u dhacday. waa dhacday iska gaaban oo iska fudud. Nawaal waxay isbarteen wiil. waxaa dhexmaray qiso jacayl oo ay ku ballameen ilaa iyo in ay isguursadaan. waqti dheer kadib jacaylkooda way iskhilaafeen. Nawaal iyo gacliyaheeda way kala fogaadeen. Nawaal waxay leedahay gabar saaxiibteeda ah oo aad qaali ugu ah oo ay saaxiibo ahaayeen ilaa 15 sano. way isla soo barbaareen, waxaana ka dhaxeeyay cilaaqaad wanaagsan oo ay wadaagayeen cuntada, cabitaanka, dharka iyo wax walba. xataa waxay ahaayeen kuwa hal meel ku wada noolaa, yacni saaxiibo wanaagsan. marka ay iskhilaafeen Nawaal iyo gacliyaheeda, ninka waxa uu bilaabay in uu xiriir la sameeyo saaxiibteeda, magaceedana waa Cabiir. xoogaa kadib Nawaal way ku laabatay gacliyaheeda. Nawaal waxay ogaatay in uu khiyaamay oo saaxiibteeda xiriir uu la wadaagay. way ka xanaaqday asaga, sidoo kale saaxiibteedana way ka xanaaqday. kadibna asaga ayay burisay. dabcan way raacisay saaxiibteedna oo way burisay. muxuu idinkugu ciyaaray ninkaas? aniga ma ogi sababta uu noogu ciyaaray, laakiinse waxaa suuragal ah sidaan u fahmay waxa uu rabay inuu igu diro walaashay, sidaasna aan ku kala go'no. waxaana la yaab ila noqotay sababta uu noo kala shukaansaday labadeenna, weliba asagoo og inay tahay saaxiibteyda qaaliga ah oo iila mid ah walaashay. markaan dib ka ogaaday inuu labadeennaba na khiyaanay, waan ka jelahay run ahaantii sidaan ula dhaqmay saaxiibtey. waana dulmiyey, weliba iyadoo idhahayso ii ahaamin abbaayo waxba kama ogeyn. kadibna waad ceewasay iyada? waan ceebeeyey. iyada weliba waxay isku dayaysay inay ii caddayso sida ay wax u dhaceen, balse waqtigaas aniga ma arkaynin wanaaggeeda. waxaa ii muuqday oo keliya inay ii khiyaantay. yacni waxaa ku hayay dareen kale, mana aadan siinin fursad ay isku barayeesho iyada? maxaa yeelay waan aamini waayey iyada. xilligaas xoogaa isagana waan jeclaa, waan iska murugsanaa. arrinta dhan waxay igu noqotay dhiinto. yacni iyada shoog ayay ku noqotay sida aan ula hadlay. xataa way awoodi weysay. yacni waad ogaatay inaysan wax dhexmarin labadooda? dib baan ka ogaaday. markii ay rabtay inay iyada ii sheegtana anigaa maqli waayey hadalkeeda. waxaan ku dhahay ma rabi hadalkaaga, waan ka diiday waana buriyey. dib dambe waxaan ka ogaaday xaqiiqada waxay tahay iyo in laygu diray saaxiibtey. isla markii waan aaday si aan u raaligeliyo, balse way iga diiday. maxaa yeele markii hore aniga uma ogolaan inay isdifaacdo. ma u wadatay asxaabtaada iyo dadka aad istaqaanaan si ay kuula xaliyaan? waxaan u watay familkayga, sababtoo ah familkeeda iyo familkayga xiriir wanaagsana ka dhaxeeyey. iyaga iyo walaalaheen ayaa isku dayay, laakiin iyada way aqbali weysay, wayna diiday. sidaas darteed ayaad u timid barnaamijkan almusaamax kariim? si halkan aan ugu raaligeliyo. laga yaabay aniga waxay ila tahay inaysan wax badan inaga qaadanaynin mushkiladdan. yacni waxaan horay u xalinay dhibaatooyin ka waaweyn oo ka daran middan. insha allah khayr. aan aragna hadda waxaan u dirnay risaalada Cabiir, wayna gaartay dabcan. aan isla aragno sida ay u qaabishay. waan ku salaamayd marwo. waan kaa qaaday. ahlan wasahlan Cabiir. ii fadhiiso. sideetaa caafimaadkaaga ka waran? aad baan u fiicanahay ustaad. aad baad ugu faraxsan tahay in aan barnaamijkan kugu casuumay. aad baan u jeclaa inaan ku arko, waxayna ii tahay sharaf. allah ku xafido. anigana waxay ii tahay sidoo kale sharaf. aad baan ku jecelnahay annaga, waana ku taageernaa. cimriga allah ku barakeeyo. anigana aad baan idin jeclahay. iiga waran caafimaadkaaga? alxamdulilah. iiga waran reerka dhammaantooda, xaaladooda, noloshooda ka waran nolosha? alxamdulilah kulli way fiican yihiin. maasha allah.
waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn sababta aad u timid barnaamijkan. waxaan u imid inaan adiga ku arko. Hadda waad ii aragtay. haa Mar kale ma jeclaan lahayd? haa waa jeclaan lahaa. Lacag laguma guulaysanayo. Malyan ma jirto. Qofaa iga dalbaday inaan kuu waco. maxaa yeelay aad buu ku danaynayaa qofkaas. waan gartay. Qiyaas, wiil miyaa mise waa gabar? laga yaabay inuu wiil yahay. wiil waxaa jira qof yacni wax idinka dhexeeyeen. maya laakiin ma ogi. laakiin adiga qalbigaaga wuu nadiifsan yahay, wuuna cad yahay sida wejigaaga oo kale. haa aniga qalbigayga aad buu u wanaagsan yahay. waxaa kaa muuqda maskiinnimo iyo deganaan. alxamdulilaah. alxamdulilaah. cabiir, ma rabtaa qofka kuu wacay inaad ogaato? dabcan. shaashadaas fiiri. macquul ma ahan. ma dhici karto. marka hore aad baan iskugu dayay inaan la heshiiyo. gurigeeda ayaan aaday, waan baryey, gacmahan ka shumiyey. wayna iga diiday, gurigana way iga saartay oo way burisay. waxay igu dhahday ma doonayo inaan ku saamaxo. yacni aniga dhegaysa cabiir, waa labadeena. waxaad ku samaysay waxa ay ka xanaaqday. maya sidaas ma ahan. iyada iima sheegin arrimaheeda, anigana uma sheegin arrimahayga. laakiin adiga waad ogeyd inay wiilka wax ka dhexeeyeen. maya haddii aan ogaan lahaa aniga ma qiyaami lahayn. maxaa yeelay iyada waa walaashay. waan isla soo barbaarnay. waan ogahay. haddii aan rabo inaan qiyaano ma baraaligeli lahayn, balse aniga ma ogeen. qaladku waa aniga iyo iyada oo siraheena iska kala qarsanay. waa sidaas qaladkeena. waad is ixtiraamayseen laakiin sir iskuma sheegaynin. haa iskuma sheegeen siraheena. qaladkeena ugu weyn ayaaba sidaas ahaa. way iga qarin jirtay, anigana waan ka qarin jiray. kadib aniga ayaa dib ka ogaaday inay wax ka dhexeeyaan iyadii asaga. isla markiiba waan u jaray xiriirka. waan gartay. maxay kula tahay? ma idinku ciyaaray wiilkaas mis maya? haa wuu nagu ciyaaray. aniga haddii aan ogaan lahaa kama aqbali lahayn xiriirka. maxaa yeelay iyada waa walaashayda oo kale, waa saaxiibtayda aan jeclahay. marna kama aqbali lahayn. waxaan aaday gurigeeda, way diiday raaligelintayda. haddana iyada ayaa ii imaatay oo rabtay inay ila heshiiso. waxaan ku fikiray maxay iiga diiday raaligelinta marka hore, maxayna hadda iigu soo laabatay ee iigu imaatay. yacni iyada way ka shalaysay cabiir. waxay ogaatay xaqiiqda, kadibna way ka shalaysay wixii ay kugu samaysay iyo sida ay kaaga diiday raaligelinta markii hore. aniga sidoo kale waan dhaawacmay, maxaa yeelay waxaan ugu tegay inaan raaligeliyo soo ma aha. i dhegayso, waxay kuu soo qortay risaalo. waan arki doonnaa wejigaaga markaad hadalkeeda maqasho. okay dhib ma lahan. waxay ku dhahday walaasheeda qaaliga ah oo aan jeclahay cabiire, ma aqoonin macnaha ay leedahay walaaltinimada ilaa adiga ayaa i baray. mana aqoonin macnaha ay leedahay saaxiibtinimada ilaa markaan adiga kula kulmay ayaan bartay. waxaan isla nooleen in ka badan 15 sano, anagoo marna kala fogaanin. adiga waxaad ogeed sirahayga oo dhan, kaas oo aan u sheegin ehelkayga oo dhan. dabcan kuma jirin sirtaan. waa hubaal. labadeennu waxaynu ahayn laba dembi laga galay, balse shaydaanka ayaa isku dayay in uu nakala geeyo, wuxuuna sabab u noqday kala tegayna. maalmihii aan kala fogeyn waxaan ogaanayay qiimaha aad leedahay. waxaan weli ka shalaynayaa shakiga xun ee aan adiga kaa shakiyey. sidoo kale waxaan dareemayaa inaan ahay qof daciif ah markaan xasuusto in xanaaqa iga dhigay qof ku dhagaysan waayey. aniga dadka oo dhan hortooda ayaan kugu qiimo dilay cabiire. maanta waxaan kugu dhahayaa dadka oo dhan hortooda, waan ka xumahay. waxaan ahaa qof dabaal ah markaan isku sawiray inaad i khayaantay. nolosha adiga la'aantaada dhadhan ma lahan. qaladkii aan adiga kaa galay wuxuu noqon doonaa xusuus aan wax ka baranay. haddii aad ii oggolaato inaad i cafiso, ee ii cafi abbaayo. walmusaamax kariim. hadda dareenkeeda waxay ku cabirtay halkan. nabaal, farintaada waan akhriyey, ee hadal adiga. cabiir way joogtaa sida aad aragto, waxaana ka muuqda deganaan iyo wanaag. wayna ku dhegaysanaysaa. marka adiga waxaad dhihi lahayd oo aad rabtay inaad u sheegto markaad u tegaysay. aniga waxaan ka codsanayaa inay ii cafiso. waxaan ka xumahay wixii aan ku sameeyey oo foolxumada ahaa. haddii aan ogaan lahaa marka hore inaysan iyada dembi lahayn, hubaal sidaan ku sameeyey kuma samayn lahayn. maxaa yeelay waxay iigu timid guriga inay igu raaligeliso, iina sheegto inaysan wax luga ku lahayn qaladkii dhacay. laakiin aniga xilligaas waxaan ahaa qof niyad jabsan.
mana ka aqbalin heshiiska iyadii garabtay. Waan caayay waana buriyey. Laakiin hadda adduun weynaha hortooda waxaan kuugu leeyahay iga raali noqo abaayo ee iska kay cafi. Weliba waxaan rabaa inaad soo celiso sida aan ahayn markii hore. Soo xasuusa abaayo yaraanteena. Waxaan ahayn dad wada ceesho oo isla nool, isla cunteeyo, isla wareego, dharka isla xirto waad ogtahay. wax walba ayaa naga dhaxeeyay xabiibtii ee waan ku baryaa noo soo celi iskana kay cafi. Sidoo kale waxaan halkan u imaaday inaad aragto xaddiga aan ku jeclahay abaayo. weliba dadkan oo dhan waxaan rabaa inay ogaadaan inaan ku jeclahay. cabiir maxaad ka leedahay adiga? aniga xataa sidaas ayaan u jeclaa, waxayna ahayd walaasha kaliya oo aan jeclaay, laakiin nasiib daro iyada taas ma fahmin mana isiinin fursad ay ugu dhagaysato si aan u heshiin. waqtigaas iyada ma awoodin, laakiin hadda ayay awoodaa. maya ma cafin karo, ma aqaan. aad ayay qalbiga iiga jebisay, weliba aad iyo aad. okay, waxaad noo sheegtay inay ahayd saaxiibtaada qaaliga ah oo aad sharfaysay. haa, waan isla soo barbaarnay sanad iyo bar. waxaad ku nooleedeen xanaaq, ciil iyo is-eedeen. waxaad rabtaa inaad sidaan ahaataan mar walba oo xiriirkiina go'sanaado. gabadhan way timid, waxay ka timid Lubnaan. waxay codsatay inay ku aragto, waxayna si sharaf leh kuga casuumtay istuudiyogan. dabcan waxay rajaynaysaa inay kula heshiiso oo aad cafiso. weliba waxay kaaga dalbatay malaayiintan dad hortooda. way igu filan tahay sida lama filaanka ah oo qalbigayga u dhaawacday. la yaabay igu noqotay run ahaantii. ma aqaan. waa dareenka ugu soo naqnaqday. haa, igama go'in. waa dareenkaa go'i waayey, laakiin waxa sababteeda lahaa qof kale. marka waa la xalin karaa, waana inaad isfahantaan labadiinna. haa, annaga ma ogeyn ninkaas xaqiiqdiisa iyo waxa uu damacsanaa. okay, yacni waa qof idinku baashaalayey wuuna idin qiyaameeyey. waa runtaada, laakiin ma ogi, mana awoodo inaan cafiyo. noo sheeg sababta. maxaad u cafin la'adahay? aad ayay ii dhaawacday. sanad iyo bar ma dhammaanin miyaa dhaawacaaga? yacni deriska hortooda ayay xataa igu ceebaysay. waxay kugu dhahday dadka hortooda ayaan kugu ceebeeyey, haddana dadka hortooda ayaan kugu cafis weydiisanaa. weliba dadkan ayaa ka badan. yacni waxaa idin daawanaya malaayiin oo dad ah. maxaad ka leedahay? wax jawaaba uma haayo. nawaal, yacni wax yar la hadal. adigoo jooga aniga kuma difaaci karo si aad u raaligeliso. adigoo jooga aniga kuma difaaci karo. ma aqaan waxaad dhihi lahayd. waan ku daalay aniga. waxay ila ahayd inay tahay qof qalbi nadiif ah. maya, qalbigayga waa nadiif. waa nadiif qalbigayga, balse waxaa iga dhammaan la weli. ma aqaan waxa aan dareemayo waxa ay yihiin. qof qalbigiisa wanaagsanaa oo la xumeeyey, sidee kula tahay in lagu soo celi karo karaamadiisa oo hore loo dhaawacay? yaa allah, cabiir, yacni dadkan meesha fadhiyo soo uma jeedid. iyadaba waxay sharafteeda ku lumisay dadkan istuudiyoga jooga hortooda. ugu yaraan waa 300 qof. dib dambena waxa uu daawan doono dhammaan dadka ku nool caalamka. marka adiga inaad fahantid ayaa loo baahan yahay. calaa kulli xaal, nawaal, waxaad dhihi lahayd dheh. cabiiray abaayo, waxaa rabaa inaad i cafiso. waan kugu qaldamay aniga, waana ka xumahay. daawadayaasha hortooda ayaad mudan tahay inaan kugu raaligeliyo. wax yar ka fikir abaayo, adigoo xasuusanaya saaxiibtinimadeenna qaaliga ahayd, iskana iloow wixii dhacay. u fikir si degan, waan ku baryaa ee aan soo celinno xiriirkeennii walaaltinimada ahaa oo quruxda badnaa. nawaal, soo iima sheegin inay isdhexgaleen ehelkiina. hooyadaa iyo hooyadeeda saaxiibo ayay ahaayeen. haa, hooyaday iyo hooyadeed saaxiibo ayay ahaayeen. haa, middaas xasuusi. xasuuso abaayo, yacni waad ogeed hooyadaa ugu tegi jirtay gurigeeda, way la soo joogi jirtay. hooyadaana sidoo kale way u imaan jirtay, wayna la joogi jirtay, wayna isjeclaayeen, waad og tahay. hana iloobin sidoo kale, anigana waad ogeed gurigiina ayaan joogi jiray, mararka qaarna adigaa gurigeenna joogi jiray. xasuuso cabiirey, ayaamaheenna quruxda badnaa oo ay dadka la yaabeen, saaxiibtinimada fiican ay naga dhexaysay. waa ka shalaynayaa sida foosha xumeed ee aan ku ceebeeyey. waa ku baryaa iga raali noqo. waxaan Lubnaan ugu imaaday si aan adiga kuu raaligeliyo, maxaa yeelay aad baan kuu jeclahay abaayo. way adag tahay. haa, way adag tahay. nabaal, ma rabta inay ku cafiso? maya, waan ka fikiraa xoogaa. go'aan ayay gaartay, mana rabta inay ku cafiso khalaas. abaayo, fikir wax yar ka fikir maalmihii quruxda badnaa ee na soo maray. waad ogeyd hooyada allah u naxariistee sida ay ii jecleed, anigana aan u jeclaa. hadda haddii ay joogi lahayd hooyada,
waa hubaal kala go'eenna way ka murgi lahayd wadajooggeenna ayayna jeclaa lahayd waa ku baryaa noo soo celi haye hadal cabiir waxaad u muuqataa qof ka fikiraya wixii tagay yacni hadda kama fikiraysid miyaa waxa taagan gabadhan waxay u timid inay gaarto mowqifkeeda wuxuuna yahay inay kula heshiiso maxaa yeelay waxay dareemaysaa shalay adiga ma dareemin miyaa qisada ay kaaga sheekaysay hooyaday iyo hooyadeedba madaxa ayay ii saaran yihiin bes haye sidee wax u jiraan way igu adag tahay inaan si fudud ku cafiyo dhaawaca adag ee ii geysata dartiis hal fursad isii cabiir saaxiibtinimo dareen rasmi ah idinkama dhexaynin miyaa xataa walaaltinimo ayaa naga dhexeysay yaa allah waa wax fiican haddii ay walaaltinimo idinka dhexaysay way daashay lubnaan ayay ka timid halkan ayay imaaday dadka hortooda adiga uma haysid saaxiibtinimo rasmi ah sida ila tahay haddii ay sidaas tahay ha cafinin khalaas haddiiba ay jirin sabab laysku cafin karo maxay tahay saaxiibtinimada noocaas ah waxba ma ahan saaxiibtinimadaas khalaas soo maahan haddii aadan rabin iska dhaaf khalaas halkan ayay timid waan aragnaa khalaas qof walba albaabka uu ka soo galay ayuu ka bixi doonaa aniga dareen ahaan waan rabaa inaan la heshiiyo bes waad rabtaa inaad cafiso waan rabaa maxaa kuu diidan hadal aniga waxaan rabaa yacni waxaad dareemaysaa in sharaftaada ay hoos u dhacday waa hubaal iyada xataa waxay dareemaysaa in sharafteeda ay dadka hortooda ku dhumisay si ay kuu raali geliso may sii kartaa sabab igu dhiirigelisa inaan cafiyo ma u baahna wax sabab ah waad ogtahay waxaan nahay reer lubnaan waxaa jira sababo badan lubnaan waxa ka socdan waad og tahay waxaana nooga imaaday qisooyin kala duwan marka saaxiibtinimo 15 sano soo socotay in wax yar lagu jaro ma ahan dhalinyar in ay isdilaan ayaa la xalinayay dhiigag fara badan ayaa dhulka lagu daadiyey waana la cafiyey sidoo kale dhacdadan waxay ila ahayd markaan qabanayay midda ugu fudud in qaabilay waxayna ila ahayd mid ku dhammaanaysa wanaag okay markeena hore waxaan ahayn dad sirtooda kala qarsadaa oo aanan isku sheeganin iyadii anigaba waan leenahay okay hadda wixii ka bilowday isku sheega sirihiina inaan isku sheegno siraheena yacni waxaan ka rabaa iyada inay ii sheegto sirteeda nabaal adiga waad qarsataa ee haddii aad heshiisaan ma u sheegaysaa sirahaaga saaxiibtinimo haa dabcan isweydiis ma lahan maxaa yeelay markaad kala qarsataan waxaad la kulmaysaan dhibaato tan oo kale iyo idinku dhicin mar kale yacni ka foojignaada anigii iyada kaliya nagama dhexayso saaxiibtinimo waxaa naga dhexayso walaaltinimo xataa jecelkeeda iyada ma barin hooyo ama abbaayo ama saaxiibteed waayahay adiga ma u sheegtay wax walbo waan u sheegay wax walbo marka laga reebo arrintan ani tan lay ka qariyey adigaba waad qarsatay marka way idinku dhacday labadiinaba calaa kulli xaal hadda muxuu yahay go'aankaaga noo sheeg jawaabtaada ugu dambaysa waxaan rabaa inaan cafiyo ma cafinaysaa waan cafinayaa ma hubtaa waan hubaa maxaa yeelay iyadu waa walaashay waa xabiibtay nawaal bravo calayk sida lagaa rabo intaasay ahayd
hambalyo waxaan idinku hambalyeenayaa inaad heshiiseen. waa mahadsantahay Ustaad George. maya adiga ayaa mahadsan Nawaal oo ku soo dhiiratay inaad halkan timaado si aad ula heshiiso saaxiibtaada. waxaan kaaga mahadcelinayaa kalsoonidaada. isla markii ay timid Cabiir waxaan ogaaday inay tahay qof qalbi nadiif ah. waad mahadsantahay Cabiir. waxaan qiyaasay inaysan bixaynin iyada oo aan ku cafinin. hadda stuudiyoga waxaad ka bixaysaan idinka oo heshiiyey oo faraxsan. sidan qurux soo ma ahan? haa dabcan aad iyo aad. soo celiya saaxiibtinimadiina iyo jacaylkiina walaaltinimadiina kana sheekaysta sirihiina. insha Allah adina waa mahadsantahay. garabkiina Allah ha galo nabadna Allah idinku geeyo Lubnaan. yalla maca salaama.